ciyaaruhu waxay door weyn ka qaataan isdhexgalka bulshada, dhiirigelinta ama bajahaynta dhalinyarada. Sanadadii u dambeeyay Soomaaliland waxa si weyn looga dareemayay hoos u dhac ku yimid ciyaaraha kala duwan, taasoo xataa sababtay in ciyaaryahano reer Soomaaliland oo caan ay u ciyaar gudaan ama ka qayb galaan tartankii ciyaarihii maamul goboleedyada Soomaaliya ee dhawaan lagu qabtay magaalada Muqdisho. حسن ورابع عدد وخبير لنا عيارها وحو شرحيا صوبها كيني هبع سنوات كتمي عيارها كلا دواني سوماليلاند كيني ugu miibsan waxa weeye hadii aan la sameeynin marka jadwal sanadla ah oo sanadkoo dhan ay jireyso waxyaabaha la doonayo in la qabto ama ay ahayd tartamada dugsiyada tartamada degmooyinka tartamada gobolada tartamada naadiyada heerka koowaad tartamada ciidamada tartamada jaamacadaha marka waxa halka ka soo baxaya waxay ahayd wax aad u qurux badan oo sanadkoo dhan socda oo ay soo bixi lahaayeen ciyaartooy magac ku leh ku tartamaya inay noqdaan ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan ciyaaryahanka ugu orodka badan ciyaaryahanka ugu boodada dheer marka maanta adigaaga ma garan kareysid qof aad ku hagaagto jadwalka aan ku sheegay sanadeedka ee la doonayo in ciyaaraha lagu hormariyo oo la rabay inay dhalinyaradeenu hiigsadaan iyagu xul qaran oo ay leeyihiin inay hiigsadaan oo aanay hiigsan tamaata aan arkayno ee ah inay ismuujiyaan xagee isku muujiyeen inay waxay noqdeen inay tagaan amba Puntland oo ay ka ciyaaraan xamar taana runtii wax ka xumahay Cabdiraxmaan Ilkaase waa kabtanka xulka gobolka Hawd muddo 15 sano ayuu ku ciyaarayay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa laakiin maanta ayuu ugu niyad xun yahay Xasan wallahi waxaan ku ciyaarayay muddo badan ilaa 15 years meelahaas aan ku ciyaarayay laakiin samaatan ugu niyad xumay maanta markaan waqtigii soo gaarnay oo aan ugu fiicnayn oo aan wax badan ka reejinay sportska ayaan ugu niyad xunay maanta waxaan arkaynaa madax iyo maamul aan u helanayn inay sportska ay horumariyaan sportska inay nooleeyaan sportska aan qorshe ugu jirin marka wallahi maanta aan ugu niyad xunay kulli waxaan dareemayaa oo ila dareena dhamaan sportska Soomaaliland ama gobol ha noqoto ama Hargeysa dhexdeeda ha noqoto inaan qorshe loo dhigin sportska Soomaaliland oo aan lagu xisaabtamin dhan oo 4 sano muddo inta la eg furan oo 2 tartan lagu qabtay سيادوكتي ترتان عيار قبلاد عيار لوجو قبتي يمد أي عيار لوجو قبتي إن قرون كا إن إسكبدا عيارك لو عياري صاحب شنو حتى لقاه رستاجي لقولنا يلا كم عياريس مركها والله ودي بتوين اللي بكانوا حنو قدان أنو آنيني يا حق مامك أجسمها وزارة عيارها Soomaaliland محمد حسين دبية أيام ويدي سببته وقبل واير ترتمع عيارات صدق سنة ودنبي وحنا كتشرنا سيدي هرتبيس كلا صار للسلاح sanadkan 2017 way noo qorshaysnay runtii laakiin in ciyaaro joogto ah la furo laakiin dhibaatada jirta waxay ahayd duruufaha dhacay sanadkan gaar ah doorashooyinkii kamid ahaayeen waxa ka jiray abaar inay dhacday runtii baahsan marka ku talagalkii miisaaniyadda ee sanadka 2017 sidii la rabay muu noqon marka wax alla wixii u qorshaysnaa wasaaradda majority-geed waxa way inta badan may suuragelin dhabeeyo waxa uu intaasi sii raaciyay in ciyaaryahanada Soomaaliland ee ka qayb galay tartankii ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya go'aan laga gaari doono waxay muujinaysaa runtii caruurtii ka ciyaaraysa Soomaaliland inay taantaan iyo awood ahaanba maanta ka wanaagsan yihiin waxa weeye kuwa koonfurta Soomaaliya oo sidaynu arkaynay raggii ka dhex muuqday baa yihiin kuwii runtii Soomaaliland ciyaari jiray qofafka dusaya caruurteeda iska xiisooday tagayna runtii كل تلاوين وزارة ولا جت عشان دونا يقرب كبا لكن وحين خصية معها أيان لحليو أو أحفيان كحلك قبل كهود أيا شيئين دل يرب بدنا تهريبين كدي مركي أيوين دي رجالين أفرت السنة ومدة أفرت السنة هو مدة دنيا رضي يقول بدنيد أي سوماليلاند كتهريبتي قارهان عاصمة أي كتهريبتي دنيا رضا فراب بدني واحد لتهريبتي وحوين ما ولين الآن مدى الآن يولي بقى dhiirigelinta sportska oo ay waayeen mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaruhu waxay aaminsan yihiin in miisaaniyadda loo qorsheeyay aanay ku filayn miisaaniyadda loo qorsheeyay wasaaraddu miisaaniyad ku filan marnaba ma laakiin Xasan Waraab Cadde waxa uu sheegay in wasaaraddu ay abuuri karto dakhli haddii qorshe loo sameeyo qaba anigu waxaan qabaa wasaaradaha ee wax soo saarka sameyn lahaa inay ka mid tahay iska daab miisaaniyadeeda inay sameyn karto wax soo saar marka loo eego garoonka aynu leenahay Hargeysa Stadium garoonka kale Timacadde garoomada kale halkani waa garoonka kubadda cagta ee ugu weyn caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa muddo 4 sano waxa lagu qabtay 2 tartan oo kaliya inkastoo uu roog cagaaran yaalo haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland
muxuu ku waajihi doonaa niyad jabka ku yimi dhalinyarada ciyaaraha Somaliland oo aad uga walaacsan mustaqbalkooda xasan Suleymaan Haruun Xasan Galayd telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa